kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel walbaad joogtaan iyo si walba isra maqalkan idiin soo gaadhaya kusoo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a howlgal xoogan oo ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ku qaadeen degmada adanyabaal iyo weliba ciidamadii ugu badnaa oo hareereeyey xili ay soo baxayso warar la xidhiidha in madaxdii ururka al-shabaab oo degmadani ee ku sugnaa ay gebyahaanba iskaga carareen. waxaa dhinaca kaleeta idiin soo gudbin doona xogihii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi weliba taliyo odawaha yuusuf raage oo dib ugu soo laabtay furimaha hore ee dagaalka gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba gobolka hiiraan xili dowladdu ay halkaasi u dirayso mas-uuliyiin sarsare oo iyagu hagi doono howlgallada halkaasi ay ka wadaan ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. dhinaca kalena ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo shalay gaadhay degmada beledweyne ayaa saanad ciidan iyo weliba raashin gaadhsiiyey furimaha hore ee dagaalka ciidamada ku sugan, waxaana la arkayay ciidamo aad u tira badan oo kusii siqaya wadada isku xidha gobolka hiiraan iyo weliba sidoo kaleto gobolka guduud, waxaana soo baxaysa in beelaha deegaanadaasi dega ayaguna ay bilaabeen kacdoon xoogan oo ka dhana ururka argagixisada al-shabaab. waxaan idinka haynaa warar faahfaahsan oo arintaasi ku saabsan. dhinaca kalena 5 bilood kadib heshiiskii dowladda kenya iyo weliba madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa ay ka faa'iiday soomaaliya xili dowladda kenya ay shalay tashaacisay in 5 bilood ee lasoo dhaafay ay qaadka ay kenya u dhoofisay ay ka faa'iiday lacag gaaraysa 4 bilyan oo dollar. haddaba arrintaasi maxaa soomaaliya uga qorshaysan maadaama agbiyahaanba heshiisyadii ay la galeen dalka kenya uu wax ka suurtoobayba uusan jirin. dhinaca kalena waxaanu soo qaadan doonaa qodobo la xidhiidha dagaalka xoogan ee ka socdo deegaanka tigreega, gaar ahaan magaalada maqale ee xarunta deegaanka tigreega oo ciidamada huwanta dowladda ethoobiya iyo weliba kuwa deegaanka axmaarada ay subaxnimadii hore saaka ay dagaalo xoogan halkaasi ka fuliyeen xili qaramada midoobay weliba beesha caalamka ethoobiya uga digayso in tacdiya ay halkaasi ka geysato maadaama duqeymo xoogan oo dhanka cirka maalmihii ugu dambeysayba lagu waday xarunta deegaanka tigreega maqale. waxaan idinka haynaa warar faahfaahsan qodobada iyo kuwo kale ayaan halkan ugula wadaagi doonaa haddii ay tahay markaadii kuugu horeysay si shargare barnaamijka. haddii aynu ku bilowno duulaan adag oo ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba kuwa kacdoonka shacab ay ka fuliyeen saaka gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu soo waramayaa in howlgal xoogan oo ciidamada iyo weliba guud ahaanba dowladdu ay ku qaaday deegaanka adanyabaal ama degmada adanyabaal oo xarun weyn u ah ururka al-shabaab in saaka subaxnimadii hore ciidamadu ay gebyahaanba ay hareereeyeen, waxaana isa soo taraya in ururkii madaxdoodii ay gebyahaanba halkaasi iskaga qaxiyaan. degmada adanyabaal oo ah degmadii isbuucun ka hor la sheegay in lagu xabaalay cali dheere oo markii dambe arrintaasi warar ay kasoo laabteen, ayaad moodaa in dadka deegaanka ay degmadani u tahay degmo aada muhiim u ah maadaama degmadani ay tahay meesha ama xarunta ugu weyn ee ururka al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe. ayaa lasoo warinayaa in saaka ciidamadu ay weerar xoogan ay ku qaadeen. ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa gobolka shabeellaha dhexe waxay ka wadeen howlgallo xoogan kuwaasi ay ku baxsanayaan ururka argagixisada. tan iyo shalayto ciidamadu waxa ay sheegeen inay qabteen in ka badan 10 tuulo kuwaasi oo aada uga fogeen degmada adanyabaal iyo weliba deegaanada kaleeto ee gobolka shabeellaha dhexe, waxaana saaka ciidamadu duulaanka ay ku qaadeen deegaanadaasi ay hordhac u tahay duulaan xoogan oo ciidamadu ay ku qaadi doonaan deegaano aada u tiro badan oo ay ka mid tahay agagaarka degmada jowhar iyo weliba balcad oo gebiahaanba inta u dhexayso ay gacanta ku hayaan ururka argagixisada al-shabaab. dhanka kaleeto dowladda federaalk soomaaliya oo cilaamisay dagaalo 3 jaha ah oo ururka al-shabaab ay ku qaadi doonto ayay deegaanadani u tahay meel muhiima maadaama ciidamada dowladda federaalk soomaaliya saldhigyo waaweyn ay ka sameyseen degmada balcad halkaasi ay uga duuli doonaan guud ahaanba xoreynta gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba shabeellaha hoose. si kastaba dagaalkii saaka iyo weliba duulaanka ciidamadu ay qaadeen waa mid ka dambeeyey kadib markii qaraxyo istabajooga ay ka dhaceen deegaanada degmooyinka jalalaqsi iyo bulobardi oo gobolka hiiraan ka tirsan, islamarkaana halkaasi lagu dhibaateeyey dad ka tirsanaa dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba dad ayagu shacaba oon waxba galabsanin. si kastaba ururka al-shabaab oo ayaguna taagtika cusub oo dagaal la soo baxay ayaa u muuqda in ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysanayaan dadka shacabka kadib markii ay u gegsan waayeen duulaanka xoogan iyo weliba sidoo kaleeto dagaalka ay ciidamada la geliyaan. dhanka kaletana dagaalkii saaka iyo weliba duulaankii saaka lagu qaaday degmada adanyabaal ayaa fariin xoogan u ah ururka al-shabaab maadaama dowladdu hadalkeeda ay ka dhabaynayso oo insan warkeedu noqonaynin mid gebiyahaanba
ku dhufo ka dhaqaaq. Dowladda federaalk Soomaaliya ayaa marar badan waxa ay ku dhawaaqday inay qaban doonto deegaano aad u tiro badan ay kamid tahay degmada Aadan Yabaal iyo weliba deegaanka Cadale, waxaana gebi ahaanba ay ka dhabaysay wararkeedii ku saabsanaa in halkaasi ay ka fulin doonto weeraro iyo weliba in ay halkaasi qaban doonto deegaanadaasi ay ka sifayn doonto ururka argagixisada Al-Shabaab. dhanka kalena taliya Odawaah Yuusuf Raaga, taliyaha ciidamada dalka Soomaaliya, ayaa dib ugu soo laabtay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba gobolka Hiiraan furimaha markaasi lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Tan iyo intii kacdoonka curtay, taliya Odawaah iyo weliba wasiirka gaashaandhigga waxay booqanayeen furimaha hore ee dagaalka lagula jiro ururada iyo weliba in ay markaasi ciidamada ugu tagaan furimaha hore sifa ay u gubaabiyaan islamarkaana ay u tusaan in ay garab taagan yihiin oo meel kasta oo markaasi dagaal uu ka dhacayo ayaguna ay garabkooda markaasi joogaan. taliya Odawaah iyo weliba wasiirka gaashaandhigga oo ayagu marnaba aan nasanin tan iyo inta kacdoonka ka curtay gudaha dalka Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba gobolka Hiiraan xilli ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre shalayto uu gaaray magaalada Beledweyne, halkaasi oo ballanqaadyo yaab leh uu ciidamada ugu ballanqaaday, kuwaasi oo uu ra'iisul wasaaruhu saaka subaxnimadii hore diyaarado siday raashin iyo weliba agab caafimaad ay gaadheen furimaha hore ee gobolka Galgaduud iyo weliba sidoo kaleeto gobolka Hiiraan. dhinaca kaleeto taliyaha ciidanka Soomaaliyeed taliya Odawaah oo asagu ay soo baxaysay warar la xidhiidha in ururka Al-Shabaab ay si xoogan u doondoonayaan, maadaama maalmihii ugu dambeysayba ay soo baxayeen warar la xidhiidha in ciidamada macawisleyda ay ku soo darsadeen ururka Al-Shabaab kooxo ayagu rabo inay isku qarxiyaan madaxda Soomaaliyeed iyo weliba madaxda ciidamada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. taliya Odawaah oo marar badan ka badbaaday isku dayo dil oo ay soo qorsheeyeen ururka Al-Shabaab ayaa haatan ku sugan furimaha hore ee lagula dagaalamayo ururka argagixisada. taliya Odawaah oo ballan qaaday in gebi ahaanba uusan soo laabanaynin ilaa iyo inta uu ka xoreynayo deegaanada ku hareereysan magaalada Muqdisho ayaa haatan waxa uu ka soo laabtay gobolada Koonfur Galbeed, halkaasi oo ka daafurayay hanaan cusub oo lagula dagaalamayo ururka argagixisada iyo weliba in taliyaasha ciidamada ee ku sugan guud ahaan gobolada Koonfur Galbeed inuu markaasi ka dhaadhiciyo sidii ay u qaadan lahaayeen istiraatiijiyadda cusub ee dowladda federaalk Soomaaliya ay ku wajahayso ururka argagixisada. dhanka kalena beelaha ku dhaqan xuduudda dheer ee isku xidha gobolka Hiiraan iyo weliba Galgaduud ayaa iyaguna bilaabay kacdoon aad u xoogan. beesha Muransade ayaa saaka ciidamo aad u tiro badan waxay ku soo bandhigtay duleedka magaalooyinka markaasi ururka argagixisada ay gacanta ku hayaan ee ku teedsan xadka dheer ama wadada dheer ee isku xidha gobolka Hiiraan iyo weliba sidoo kale Galgaduud. deegaanada Galgaduud iyo weliba gobolka Hiiraan ayaa meesha ay sida rasmiga ah ay beelaha degan uga run sheegeen kacdoonka markaasi ay ku dhawaaqeen ay kula dagaalamayaan ururada argagixisada. beelaha ku dhaqan deegaanadaasi ayaa ah kuwo dhibanayaal u ah ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku dhawaaqeen kacdoonka markaasi ay kula dagaalamayaan ururada argagixisada. waxaana beelaha maanta ay soo bandhigeen hub iyo weliba ciidan aad u tiro badan, waxayna dowladda federaalk Soomaaliya baaq ugu direen sidii markaasi ay u soo garab istaagi lahayn uguna soo diri lahaayeen baabuurta ay markaasi isticmaali lahayn ciidamadan iyo hubka iyo weliba saanada ay ku howlgeli lahayn, maadaama dadkani ay ayagu wataan hubkii ay ku soo gateen xoolahooda iyo weliba hantidooda, kuwaasi ay rabaan inay ku xoreeyaan deegaanada markaasi sida xooga ay ururka Al-Shabaab ugu joogaan. guud ahaana howlgalladaasi iyo weliba sidoo kaleeto mas-uuliyiinta kusii qulqulaysa furimaha hore ee dagaalka waxyaabaha kasoo kordho wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. dhinaca kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta dowladda federaalk Soomaaliya ugu sareysana waxa ay wadaan loolan xoogan iyo weliba in ciidamada macawisleyda markaasi mushaar loo qoro, maadaama ay faamili iyo weliba ehela ay ka dambeeyaan oo ay ku sugan yihiin furimaha hore ee dagaalka, islamarkaana ay xoreynayaan deegaanadii markaasi dowladda looga fadhiyey in ay ayadu shaqo ka qabato. waxaan dhinaca kaleeto ayadana isa soo taraya walaaca xoogan ay qabaan hay-adaha caalamiga ee ka howlgala wadanka Soomaaliya, kuwaasi oo ayagana dhibana u noqonaya inaysan xataa gaari karin furimaha markaasi iyo weliba
goobaha laga qabsaday ururka argagixisada oo ay ka baqayaan in hay-adahaasi ay marka horeba dhibana u hayeen ururka al-shabaab oo dhibaatooyin kala duwan markaasi ay u geysanayeen. saaka waxaa magaalada muqdisho soo gaadhay madaxa hay-adda socdaalka adduunka u qaabilsan UNHCR kaasi oo lagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho, waxaana soo dhaweeyey wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi. waxaa sidoo kaleeto mas-uulkani inta uu joogo uu la kulmi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaaraha, waxaana uu kala hadli doonaa sidii xaalad degdeg ah loo gelin lahaa wadanka Soomaaliya, islamarkaana loo dhaqangelin lahaa heshiis ugu yaraan soconaya 2 bilood, taasi oo la rabo in lagu kala diro dhammaanba shaqaalaha dowladda iyo weliba in markaasi mas-uul walba uu ku laabto goobta laga soo doortay sifo uu dadkiisa u gaarsiiyo mucaawinada markaasi ay qaybinayaan hay-adaha caalamiga iyo weliba sidoo kaleeto sidii ay ciidamada iyo hay-adaha caalamiga ah ay u wada shaqayn lahayn, islamarkaana iskaga kaashan lahaayeen dagaalka lagula jiro ururka argagixisada ee al-shabaab. ergeygani iyo weliba waxyaabaha ay ka wada hadlaan dowladda federaalk Soomaaliya qaybaha dambe wararkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa. dhinaca kalena 5 bilood ayuu jirsaday heshiiskii ay gaadheen Uhuru Kenyatta iyo weliba sidoo kaleeto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, xilligaasi oo madaxweyne xasan uu ku imaaday wadanka Kenya booqasho rasmi ah oo uu ka helay ama casuumaad rasmi uu ka helay madaxweynihii muddaxileedkiisa u dhamaaday ee Uhuru Muigai Kenyatta. waxaana heshiisyadani ka mid ahaa in la kala bedesho kalluunka dalka Soomaaliya iyo weliba sidoo kaleeto in qaadka markaasi dalka Kenya ay markaasi isdhaafsadaan labada dal. dowladda Kenya ayaa shalay shaacisay tan iyo heshiiskaasi ay gaadheen mas-uuliyiinta dalka Kenya iyo weliba Soomaaliya in ay Kenya ka faa'iiday 5 bilood oo kelita $4 bilyan oo lacagta Mareykanka. guud ahaan marka la fiiriyo heshiiskani waa mid ay ka digeen dad aad u badan Soomaaliyeed weliba siyaasiyiin iyo ganacsato Soomaaliyeed oo ayagu dhibana u ah in ay xataa ganacsigii lagu heshiiyey ay keenaan magaalada Nairobi, waxaana markaasi lagu heshiiyey in shirkado Soomaaliyeed ay wadanka Kenya u beec keenaan kalluunka markaasi laga soo qaadayo gudaha dalka Soomaaliya. laakiin marar badan oo kalluun ay soo qaadeen waxaa gebi ahaanba lagu xayiray garoonka weyn ee magaalada Nairobi, halkaasi oo gebi ahaanba loo diiday in kalluunkaasi galo gudaha dalka Kenya. dhinaca kalena waxaa si habsami leh u socdo qaadkii Kenya oo maalin walba la qaado, islamarkaana magaalada Muqdisho kaliya ay tagaan in ka badan 5 diyaaradood oo sido qaad iyo weliba sidoo kaleeto diyaarado kaleeto ay u dirayaan gobolada dalka uu ka kooban yahay. haddaba maxay tahay danta ugu jirto ummadda Soomaaliyeed in Kenya ay ka faa'iido islamarkaana ay qaad u daabusho maalin kasta intaas oo diyaaradood ay ka faa'iido $100,000 halka Soomaaliya kalluunkii ay ku heshiiyeen ugu yaraan xataa la fulin laayahay oo uu socon laayahay muddo hataa 1 bil. guud ahaan arrintaasi waxaa ka hadlay siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo waxgarad Soomaaliyeed oo iyagu arrintani ku tilmaamay marka horeba inuu ahaa heshiiskani mid hal dhinac ka raran islamarkaana loogu faa'iideynayo hal dhinac oo kelita. waxyaabaha ka soo kordho iyo waxyaabaha markaasi ay ka falceliyaan mas-uuliyiinta waan qodobada dambe ee wararkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa. haddii aynu eegno dagaalada xoogan ee ka socda gobolka Tigreeg ayaa haatan waxaa la soo warinayaa in xaruntii dhanayd ee ururka Tigreeg ay ku shaqaynayeen ee magaalada Makale gebi ahaanba saaka ay dagaalo xoogan ay ka socdaan halkaasi oo ciidamada huwanta ay galeen islamarkaana ay qabsadeen xaruntii dhanayd ee deegaanka Tigreeg. waxaa maalin ka hor ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya kuwa Eritrea weliba kuwa dowladda deegaanka Axmaarada iyo Canfarta ay qabsadeen magaalooyin waaweyn oo ka mid tahay magaalada Adigreed iyo weliba sidoo kale magaalooyin ay ka mid tahay magaalada Almata. waxaana magaalada Makale ay tahay xaruntii kelita markaasi ee ururka gacantooda ku hadhay, waxayna u muuqataa in ururkani gebi ahaanba ay noqdeen tusbax furta maadaama laga qabsaday magaalooyinka waaweyn islamarkaana ay baaqyadii kala duwanaa soo dirayeen beesha caalamka iyo weliba khubarada dhanka qaramada midoobay gebi ahaanba ay gaashaanka u darutay dowladda federaalka Itoobiya. cunaqabatayn iyo weliba in xayiraado dhanka hubka lagu soo rogay dowladda federaalka Itoobiya ayaa gebi ahaanba waxba ka dhimaynin in ay maanta qabsadeen magaalada Makale oo dagaalo xoogan ay ka socdaan. dhanka kalena duqeymo isdaba jooga ayaa lagu garaacayay 3 bari ilaa 5 bari oo u dambeysay magaalada Makale. waxaa gebi ahaanba ka qaxay magaaladaasi dadkii ku dhaqnaa, waxaana istaagay isku socodkii weliba ganacsigii magaalada Makale. dhanka kaleeto
wadanka Eritrea oo isagu gabi ahaanba dan ugu jirin in heshiis ay gaadhaan Ethiopia iyo weliba dowladda deegaanka Tigreega ayaa iyaguna qasaya xaaladda markaasi ka jirto gudaha deegaanadaasi. waxaana la arkayay Afwerki oo hanjabaado kala duwan u dirayo beesha caalamka iyo weliba wadamada markaasi soo faragelinaya siyaasadda qalafsan ee ka jirta gudaha dalka Ethiopia. guud ahaan qodobadaasi ayaana warkeeni u dambeeyay, waxaana eegi doonaa faahfaahimaha dheeraadka ee markaasi ka soo baxaya dagaalada halkaasi ka socdo iyo weliba howlgalka xoogan ee ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka wadaan gudaha gobolka Shabeelle. tan iyo intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo amaano Allah.